Maxaa loo xusaa Maalinta Musqulaha Adduunka? Qaramada Midoobay ayaa u dabaaldega 19 Noofembar Maalinta Musqulaha Adduunka. Sanadkii 2013 kalfadhigii 67aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ka dhacay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York, waxay isla qaateen in sanad walba marka ay ku beegan tahay 19 Noofembar in ay tahay Maalinta Musqulaha Adduunka. Intaa kadib, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid fikradani halkay ka timi. Fikraddan waxay ka timi urur la odhan jiray World Toilet Organization oo lagu aasaasay gudaha Singapore sanadkii 2001. Waxaa fikradda iska lahaa nin la odhan jiray Jack Sim. Hadda waxaa laga yaabaa su'aashaadu inay tahay yaa qabanqaabiya ama u xilsaaran. Waxaa si rasmi ah u qabanqaabiya sanad walba UN Water. Waxaa kale oo kala qayb gala ururada caalamiga, ururada bulshada, iyo kuwa iskaa wax u qabsada si kor loogu qaado wacyiga bulshooyinka la dhibaatoonayo musqul xumida ama musqul la'aanta. Sidoo kale, UN Water ayaa halkudhigga rasmiga sanad kasta u sameysa. Tusaale, 2020 waxay u sameysay halkudhig ahaa nadiifinta joogtada iyo isbeddelka cimilada. 2019 qofna ha uga tegin gadaal. Marka aynu intaa isla fahnay, maxay muhiim u tahay ama maxay soo kordhinaysaa in maalin dhan loo asteeyo musqulaha? Waxay leeyihiin helitaanka musqul nadiif ah ayaa saameyn togan ku leh caafimaadka dadweynaha iyo badbaadada shaqsiga, gaar ahaan dumarka. Sidoo kale, marka aan la helin musqul nadiif ah, waxaa faafaya cudurrada halista ah ee lagu kala qaado ciidda iyo biyaha sida daacuunka, shubanka, tiifowga, iyo kuwa la midka ah. Sanadkii 2015 tiro-koob la sameeyay waxa uu sheegayaa wax ka badan 670 milyan oo qof inay ku dhaqmaan saxarada furan, yacni bilaa musqul, oo meeshii ay soo gaadhaan ay ku dhacaan. Dabcan waa tiro cabsi leh. Ma kula tahay dadkeena Soomaaliyeed inay la dhibaatoonayaan arrintan?